Sheekadeena maanta waxay ku saabsantay dameer iyo harag libaax wixii kala qabsaday. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa dameer wuxuu helay harag libaax oo meel yaala. Ka bacdi wuu xidhay haraggii libaaxa. Meel kastuu tago, xawayaanka iyo dadku way ka cabsanayeen. Waxaanay moodayeen inuu waxan yahay libaax. Isna markuu arkay in dadkii iyo xawayaankiiba ka cabsanayaan, ayuu wuxuu isku maleeyay inuu yahay libaax. Maalintii dambe ayaa wuxuu maqlay dameero kiciyay xaafad agteed. Ilaa waa dameere isna muu aamusin. Waanu ciyay si uu isku tuso dameerihii kale. Dadkii xaafadda deganaa oo markii hore ka yaacay uu moodayay libaax ayaa maqlay, gartayna inaanu waxanay hayn libaax say yahay dameer. Waanay ku soo yaaceen iyagoo ula sita sidii ay ugu dilaan. Dameerkii yaraa miskiinka ahaa ee iska dhigayay libaaxu halkaas ayuu naftiisii ku waayay. Waxaana galaaftay oo naftiisii ku waayay haraggii libaaxa ee uu xidhay. Haddaba daawada duluca sheekadeenu waa ha iska dhigin waxaanad ahayn. Ilaa waa intaasoo naftaadaba ku weydaayay.